ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo dadka ka taxasidihay dawlad kama hadda cadeynaya al-shabaab qayb kamid oo boor ma joogto weey oo ku dagaalamaysa inuu dawlad afku bulbuliyo kuma la bulbulin karo wuxuu maartaanay balasaabku ugu toomina shabaab ahay horta runta riisheeya waxa uga wanaagsan lahayd inuu wabar ugu toomo oo qaraabanahay habrooyana nahay inuu ugu toomaan haddana wuu sheegaya inuu taay ugu toomaa wada weyd ma yaan mareynaya shabaab kaste isaga iyo turkiba iga dhow al-shabaab qayb kamid oo boor ma joogto weey oo ku dagaalamaysa inuu dawlad afku bulbuliyo kuma la bulbulin karo wallahi inaan ugu bulbulin karo wallahi inaan ugu difaaci karin nin maadar galay inaan masaajidka hadal ka leeyo been abuura inaan ku difaaci karin xasadihay waa caadayste beenaale kadaaba waxa xasad ay aanu haynaa oo laga eriyay masaajidada bartaka magaalada ku yaala laga eriyay aflagaado iyo cayu ka shubay ورف جدك مساجد توجه ما نلاحظ حميد يا أبوي أنا مركب وأشر هذا كله سايو صناعة لكن حسوا قرعة إنه كعاية مساجدنا حتى الدين تكيت تعلم دت كلنا لقى عاية مساجد والأكتي في يد والهلي كتان برسابدي هوري أو يريد دين تعاية حسب إن اللي توجه منه سيجي هيك يستونا وعطينا هدو عدين ويانا وحجلي تراب الشرعي الله يقابل. هلو صعدي ده أنا حرامي لأنه من الصوت جوا مريض جوا أيام حكارك يوتيوبك سوالي ريبور هدو باين مخاطي أنا وصل دري فيديوك أنا كنت أخبر بارن ما يو أول ما يو وحاسي أول ما يو كم قال جوا كم مخاطي كعيون مي لكن حارن تاسي يقول مقطع ونسون جيجي يا مدح القرن وهو مدحوها مدحوها كحديك وزيرك أبوها بدها وزيرك أوقافت الدينتا أول ما يأمر منك هل أريد أول ما هل بدل أول ما ولا من أول ما لكن محل هاي وحول الشرع بيها هل مريم محكمة هل الصحة حسنا ده يطلع لك قاعدة إن قبل كان بدك الجواي قال أول ما أنا كيس بانك هو قال إن أول ما حسوا بلا مدحونا هي مدحوك إليك وزيرك منها بدها هي محل كل وزيرك أوقافت الدينتا أرنكها صفر الجيان ومجال من السلاح كل جنات المجال بل يفتو السلاح كل جناته وحي واجبه شرعي إليه محكمة ضد كبير الجين والجين كيف بني إسرائيل حديث صحيح هو مقاشين إليه كيف بني إسرائيل وحهلاقي أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه كيف بني إسرائيل وحهلاقي كوضا مسكين كان ضعيف كي يحدوا حد قالوا وحقراه قبطع يا الله حلا قبطع كتوه يا الله كوضا أضي حدوا إلى واركدا يواري كاسي وأضي مركا تيجي بين إسرائيل فيان عن نقولي أنا هلا يرينا أولم مايو هلا بدرنا أولم مايو لكن هلا مري الشرع إذا إنه دجل هلا مري الدين تانو حنو ده الشرع عادي المحكمة ده كيانو وقدام بينتي إن بدل ما كانوا هذا ليني يوحي داري مري وحيوجيري تبعوا والله بالله تالله ودار مجا الله كدارتي كدارنا يبيري أنيهو سي اسمه جانا يسي ولا كعبة دار تحسن مرة ياي ما قرنا إن أنا دين تعاي ماشي نبوق يا قيل الصباح باكجري ماشي أنا عري حوالوك لتجي ساسي هوش وهيب هدينا كان وراي أصحني ماي هدادي طيارة دي لميرايس بدني هو قطرني هاوش مرة بيجي لا عتادي تهرب إلى ميريسو waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhamaanaysaa ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani ila meeraysan news Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar Sheekhul Beledka gobolkaasi awdal
ee magaalada Boorama ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegaya in barasaabka gobolkaasi Awdal uu aflagaadeeyay diinteena suuban ee Islaamka Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar sheekhul beledka gobolkaasi Awdal oo isagu xukuumadda Somaliland baaq dheer ugu diray in cid kasta oo isku dayda amaba aflagaadaysa diinta Islaamka la mariyo sharciga iyo shuruucda diinta Islaamku jidaysay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar ayaa ugu horeynba hadalkiisa ku bilaabay sida tan haddaan culimada naxwaan ahnagu ka hortagnay inuu buuq noocaas oo kale uu dhaco oo shaqab caynkaas oo kale u dhaco bal awgeed muxaadaraadna u qabanay aanan jecel lahay inay maxay hayday caawa halkaa ku dhamaata hadalaynteed waxay noqotay qadiyad bari la odhan jiray caalam islaamiga haraysay oo nin la odhan jiray Salmaan Rushdi la odhan jiray أو كل واقع أو عالم الإسلام من مركلية ووليه horta qadooda boor ma saasoo kale ku noqotay aniga waxay ugu horeysay habeenkii khamiis soo galaysay maalintii khamiistii baa ugu horeysay maqalkeeda yaa ugu horeysay ilaa jimcihana waxaan lahayn masaajidda inta waxaan lahayn warbar hal u kaaji oo waxba ka hadlaya joojiya laakiin in badan culimo oo ka hadlaya way jiraan oo wixii jiray uu dawaramay wixii jiray sheegay in badanna waxay yiraahdeen balan hubin labaan u badnayn anagu waxaan sheegay sidii aan hubin arrintan dhacday oo la sheegayo in gudoomiyihii gobolku oo aflagaadeeyay diinta islaamka oo diinta islaamka uu caayay isagoo qof kaliya kulka aan ahayn qofka uu afku qabsanayay intii jamciye qadiyada ula tagtay intii uu ku yiri maxay ahayd diintiina waxa ku sameeyo anu dawaan dul maraya sharciga islaam aadaabkeena bare waxa ah haddaad xataa xikaayoonaysa baabu shahaada kulka la joogo shayga cadeebaa lagu odhanoo ku dhawaa qofku wuxuu yiri waa lagu odhan laakiin intaana shahaadada joogin kinaayaad baa la isticmaalaayo waxaasuu sameeyey baa la odhanaya waxaasuu sameeyey waa la yar dul maraya yaa dul farax xumeeyay waad maqasheen waxa weeye waa hadal la dul marayo wey laakiin kolka maraga ay joogto hadhow uu farax xumeeyay markhaati noqon mayso uu farax xumeeyay markhaati noqon mayso wixii adarkaysa sheeg baa la odhanayaa wixii laga doonaya marka arrinka يعني meesha waxa laga sheegayaa anigu ma joogin laakiin dadka waana waramay waa la cadaynayaa inuu sidaa yiri dad badan baa cadaynayo meesha xaflad ayay ahayd haddii xaflad ay ahayd shay gacankaas u dhacay waliba dhiirida inamadii inan kamida ayuu jeelka igeeyo xabsiga igeeyo oo la xiray jeelka igeeyo oo la xiray habeenka halka dhaxanta ku bariyay oo arnimadii booliska ay yiraahdeen warda maxaan inaan ku haynaa isaga baa inay dacweynayeen oo cabanayeen maxay ku haynaa wada inaga sii daayay arrintaasina waxa weeye waa dhiirani qofku u dhiiranayo ana kolka u xambaarin maayo odhan maayo waxaas odhan maayo kama qalayo ee jooga ka markhaati kacayna may laakiin waxa arrintaasi uga muuqataa oo soo jeedinaya madaxda qaranka ee ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka awqaafta iyo diinta odhan maayo anuu ninka hal eriyana odhan maayo hal la bedelana odhan maayo labada midna anu odhan maayo laakiin maxaan leeyahay wuxuu sharcigu yahay hal la mariyo maxkamad hal la saaro xasaanada inta laga qaado inay gobolkan dadka joogay kaale odhan maayaano kiis baan kugu qaadanaa odhan maaye hasoo ogolaado madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaan ku yidhaa wasiirka awqaafta iyo diintu arrinkaas soo farageeyaano magaalada sidaa ku deganaato magaaladu dhalinyartu sidaa ku deganaato in wixii waajiba ee sharciga u leeyahay maxkamadda dadka la geeyo reer bani israa'iil xadiiska saxiixa waa maqashay inay hel reer bani israa'iil waxa halaagay annahum kaanu idha saraqa fihim dha'iif aqamu alayhi alhad wa idha saraqa fihim sharif tarakuhu reer bani israa'iil lagu halaagay kooda miskiinka dha'iifka hadduu xad garo wax garo qabta ayaa la yiraahdaa xila qabta ku tooda ayaa la yiraahdaa kooda oday hadduu yiraahdana waar ka daaya waar ninkaas waa oday marka tii reer bani israa'iil ka yeelan noqon ama hal yeeriyana odhan maayo hal bedelana odhan maayo laakiin hal la mariyo sharciga inoo degan hal la mariyo diinta anu waxaan ogahay sharci caadadii maxkamadaha ka yaalo oo ninkii ay ku cadaato diinta islaamka inuu caayay horta waa ridda diinta islaamka caydeedu waa riddo weeye waxaad ogtihiin takaadu samaawaatu walardu yatafadalna min an dacuu liraxmaani waladin samada iyo arladaasi ina dul taalaay inay bilaacdo kala go'do oo lagu soo dibacday u dhawaatay sababtu waa maxay
an dacoo liraxmaani walad ilaahay kolkay ubad ku haween bay caayin kuwaas ilaahay may caayin waxay yidhahdeen cusayr ibnullaahi un bay yidhahdeen ciisa ibnullaahi almalaa'ikatu banaatullaahi iyo kuwana shariifooda leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa oo sheega oo way naga sarreeyaan waa awlaadiisa aynu nidhaahna laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ma yeelan karo uu ka nasahan yahay adduunkii oo dhan buu wada leeyahay inuu mid ka mida yidhahda kanaa ilmahaygii oon dhalay oo ilmahaygii aan yidhaa inay walad wuxuu noqonayaa min jinsi waalid buu noqdaa walad min jinsi waalid unbuu noqdaa ama xayawaan kala ahaado ama dad ha ahaado sheegidda oo sheegay can dacow liraxmaani waladi sheegidda ilaahay ay ku sheegeen walada ilmuu dhalay ay yidhaahdeen iyagu kuwan aad shariftaan bay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa oo aynu ixtiraam iyay leeyihiin taasoo cirkiya dhulku awladuu gaaray cayn maxaad u malanaysaa cayna maxaad u malanaysaa aad baynu u sahlanay anu waxaan inta badan idhaahdaa war dadka suuqa jooga ninkii maqla ee nin diinta isagoo caayaya maqlo waajib waxa kugu markaaba horta sharcigan islaamku ma ogola cuquubada inuu qofku fushado maaha qofku ma fushan karo xataa qisaaskii baa lagu leeyay qaatulu abiik qaatulu akhiik intoo qaado unbaan anna waan qisaasanaya qoortaan ka goyna odhanaysa laa odhanaysa fidnad baa ka dhalanaysa xaakimkaad geynaysa oo xaakimkaa kuu soo bandhigayo qisaaso ku odhanaya marka waxaan idhaha war halkaad ka leedahay hadduu diinta caayo maan gacan maxaad ugaga qabanay waa tan maxkamadda agteeda iyo maxkamadduun teg markhaatina u yeel markhaatiyada gee kolkaas saasaa wixii maxay haylay adiguna ku badbaadaysa adiguna sidaas maxay haylay ayaad ku badbaadaysa wixii xumaanta aad maqasho waxaad ku badbaadi kartaa adiga oo ka xumaada ayaad ku badbaadi kartaa marka waxaan leenahay arrinkaasi haynaga soo afxidhmo wuxuu naga soo afxidhmayaa yaynaan siina wadwadu oo inaan sii qaadqaadin kolkaanu ogaanay wixii inuu markhaatiyaal leeyahay oo aanu hayno dadkii xataale maragga ilaahay waan furayaa maxkamad haddii la geeyo arrinkaa odhan mayno hala eryana odhan mayno hala bedelana odhan mayno laakiin sharciga islaamka ha la waafajiyo sidoo kale sheekh xasan daheeye oo ka mid ah culimmada gobolkaasi awdal oo maalinnimadii jimcihii shalay kaga hadlay dhacdadaasi masjid ku yaala magaalada boorama ayaa eeda kulul waxa huwiyey badhasaabka gobolka awdal isagoo ku tilmaamay in sheekhu uu ka mid yahay al-shabaab haddaba sheekha ayaa isaguna mar kale ka jawaabay islamarkaasina gaashaanka u daruuray eedahaasi u jeediyey badhasaabka gobolka awdal sheekh daheeye oo isagu arrinkaasi ka hadlaya kana jawaabaya eedaha badhasaabka gobolka awdal uu soo jeediyey iyo khudbaddii uu maalinnimadii shalay ahayd ku soo qaatay ayaa sheekh daheeye waxa uu yidhi waxa weeyaan maanta halkani waxaan ku duubayaa insha allahu tacaala nin mas-uula oo gobolka awdal mas-uul ka ah oo kolkuu gobolka awdal mas-uul ka yahay aniguna dadka reer awdalan ahay oo mas-uuliga yahay oo dhib badan oo cajaa'ib la soo jeediyey hadday waddanka dhib ku tahay iyo hadday ashkhaas dhib ku tahayba tuhumo badan aniga isoo saaray oo ka hadlay bal tuhumadaasaan uga jawaabayaa waa badhasaabka gobolka awdal runtii shalay jimcihii anugu hadal baan u jeediyey wuxuuna hadalkaasi ahaa hadal magaalada oo dhani ay maaragtay yana og tahay oo rag culimo waaweyn ay markhaati ka furayaan oo dad dhalinyaroo fara badan ay markhaati ka furayaan oo ah gaf xagga diinta ah runtii qofka hadduu gafo wuu gafi karaa ibni aadamka had iyo jeer laakiin inuu ka toobad keenaa yaa fiican horta ninkaa waxaan ugu bogaadinayaa inuu markii aniga hadaladeeda iyo aflagaadeeda bilaabayay inuu ashahaatay oo muslim baan ahay uu yidhi horta waan ugu bogaadinayaa intii waa intaan ka doonayay weeyaan allah ka aqbalo ashahaadadaas allana ha kugu sugo waayo qofka muslimkaa waa qaali in maarataanayana ashaadadiisa iyo caqiidadiisa la ilaaliyahay mar haddaad caqiidadaadii ku soo noqotay ood ashaadatay anna waan kugu ducaynaya inuu ilahay ka aqbalo taasi waa taas ta labaad wuxuu maarataanay badhasaabkii ugu tuhumay inaan shabaab ahay horta runtaan ii sheegaya waxa uga wanaagsanaan lahayd inuu wabar igu tuhumo oon qaraabo nahay habrooganna nahay
inuu igu tumaan haddana waan u sheegayaa inuu taa igu tumaa uga dhoweyd ma yaan u malaynayaa shabaabkase isaga iyo turkiba iga dhow waayo raggii ka madaxda ahaa ilaa imikadana madaxda lagu sheego dee waa turki kuwii dhintay alla u naxariistay iyaguna turki unbay ahaayeen anu qofna kumeli taasina waxaan taasaan kusoo gobayaa dee ha caddeeya isagu oo shabaabnimada ciyaar maahine waa dadka dhiigga daadinaye halkaan kaga jira ha ii sheego maxkamaddana hay geeyo ta kale qodob cajiiba xoolo agoomeed buu wadaadku haystaa buu yidhi wallahi horta wax la yaab la weeyaan waayo qofku kolka maaratan wuxuu ku nool yahay iyo noloshiisa iyo loo kuur galo meesha ay wax ka soo galayaan aad ogaato hadday waxba soo galayaan ayaa dhaa ninkaas waxaasu ka shaqeeya laakiin runtii waxaan u malay inuu qodobkaa waxa geliyey dad xanuunsanaya oo reer boorama ah oo weliba wadaad ay ku jiraan baa laga yaabaa inay aniga igu xumeynayaan arrintaas xooga lagood ba haysta way jiri jirtay muddo maaratan hadda 20 sano laga soo wareegay oon jimciyad madax ka ahaan jiray jimciyaddii raggii baabiiyey ama tirtiray ee iskuuladii kala daadiyey ee agoomihii qaarkood iska qaateen wixii meesha aan ka shaqayn jirnay gebigiisiiba faramadhnaan aan ka taagannahay kuwii unbu ayaa malaha ayaad moodaa inay waayo dee isagu agoon meelan ku hayn jiray iyo guryo agoomeed meelan ku hayn jiray midna ma ogo isagu taana isagu shaqo kuma lihine ciddii ku tidhi ayuunbaa dembiga iskale masaajidka awilihii qodobka saddexaad weeyaane khayrigu ka dhigtay masaajid badanna waa laga eriyey horta nin masaajid laga eriye mayhi masaajidna lagama eriyin jaamica waan ka hadli jiray miski jaamaca tii culimadoo dhan u taagan tahay abu hurre waan ka hadli jiray laakiin masjidka rasmiga ii ahaa aniga wuxuu ahaa haraw uu ahaa harawna waa qiimka la dhisayo bal maalinta la dhameeyey in laga eriyey kale ha u joogo halkaasaan ka hadli doonaaye kanse imkaan joogay een anigu dhistay dee horta masaajidku kii dadka laga wacyigeliye weeyaan masaajiddu waa meelaha dadka laga wacyigeliyo laguna saxo hadday weliba khaasaan ragga dowladda ku jira halkii lagu sixi jiray weeyaan cumar ibnu khadaab oo maaratay yana khaliifkii rasuulka ee labaad ah ayaa lagu sixi jiray masaajidka oo la odhan jiray seef baan kugu toosin doonaa taasina masaajidda khayriya maahine dee khayriya waa iska khayr laakiin waa meel dadka lagu toosiyo oo lagu hanuuniyo odayaasha xidhan bay noqotay ee uu leeyahay guddi baa xidhatay horta anu guddidaa maan arag waayo nimanka booliska haysta qaybta waan u tegnay waa anagu nimanka wax alla waxaan ku haysanaay haba yaraatee ma jirto weliba culays bay nagu yihiin bay yidhaahdeen kolkii haddii cidka lagu riixayana dee hargeysa lafteedu waxa waxay shaqo kaga leedahay xidhidda odayaasha ma jirto laba ninun baa loo aaninaya dee labada midna nina meeyarka yahay nina uu yahay maarata mala saabka iyagana laga doonayaa ama inay kii isku cadaystaan ama iska sii daayaan waayo odayaashaasi waa odayaashii soo dhoweeyey dadkii dhiigga lahaa ee ninka laga dilay dadkii soo dhoweeyey ee u calaacalay ee ka farxiyey ee magtii siiyey ee maarata wixii wax dhana ballan ugu qaaday wixii kalena siiyey weeyaan sabab lagu xidhaana meeshaba bataalaba qaar waxaa jira walaalkood baa ama in adeerkii ayaa dembi geli loo xidhayo mina ogeyn qur-aanka in ilaahay ku yidhi laa taziru waasiratun wisra ukhra qof kastiba qofna qofka kale dembigiisa ma qaadayo aniga walaalkay dembiga sheekh xasan gala ma qaadayo anunbaa iskale taana ha ogaadaan waa wax ka maqane marka odayaashaasi dulmi bay ku xidhan yihiin dowladdana waanu sheegnay ragga booliska haya ee korneeladina waxay idhaahdeen hadday tahay taliyaha qaybta iyo ku-xigeenkiisa iyo maaratay degmada intuba xidhaana wax alla waxaan ku haynaa ma jirto culays bayna nagu hayeen dee isaga barasaabku isaga ka jawaabi gudna uu sheegayo ugu dambaysahay dee markhaatiyada uu yidhi maarataanay halaygu markhaati furo inaan diinta ahay taa anigu waani haro sheegay anu ninka hoolka joogayna ma yihi ninkii dhegtiisa maqayna ma yihi shalayna waan sheegay warkaan jimcadda joogay laakiin magaalada oo dhan baa yaa haysa maarata arrintaas rag culimaa waaweyn baa ayaa ku dhaaranaya taasina dee waxa weeyaan dee dadka waa la aaminaaye waxaase dee markhaatiba waa inuu arrintaasi jirto inuu isagiiba ka toobadkan ka ashaatay barasaabku wuxuu yidhi barasaabyadii hore waxba ka qaadi waayey horta runtaan u sheegayaa barasaabke
anu haddii la xidhan nin wadani aan ahay jeerkana iska ogol gurigiisana iska ogol anigu nin jeelna ka baqamay xitaa shalay waxaan ugu daray halkaan hadlayay ninkii doonaya aniga inuu waxyeelaay ama aan dhib ku hayaay xitaa tiirka haygeeyahay toogto waayo haddaan dembiilaahay dee waa in lay toogtaa dembigayga haddii aan ma dembi ka fududhaade dee waa in jeel lay geeya laakiin dembiga aan galay ma waxa weeye khaladaad baa jiray khaladka hal la soxo ninkaasi ha toobadkeena dembiga inoo tahay maqlis laakiin anu mid baan sheegayaa runta weeyaan aniga hadduu ii hanjabayo ninka la dhahdo barasaabku galabta ayayna ka dhaafine halkuu doono ha igu tuuro barasaab kastoon isa soo marnayna xitaa nin maarata qaarkood dagaal baan yaan ku saaxiibnay runta in la isku sheega way fiican tahay gobolkanina saaxiibkayba barasaabkaa baan u sheegayaa inta aad joogto wuxuu ku nool yahay ma jirto weriyaal la xidho cuqaal la xidho odayaal la xidho maarata suldaano la xidho maarataanay yani wax noo faa'iido ohoo maaratay muddada aad joogta aan faa'iidnay ma jirta dhib baad nagu haysaa haddaad dhibtaad doonaysa inaad sii badisana dee ku galgalo anigu waxa weeyaan aanay shaksi 73 jeelkii la ii bilaabay kacaankii igu bilaabeen anuu masaajid iska fadhiya haddana anoo la foora jooga lana xidhay kacaankiina xidhay anoo ka eedaama la foora eedaan baa lagu xidhay haddana 18 mar kale lagu xidhay boorama aniga oo caruur u dhigaya allaha waa ayo waa allah rabbigaa waa ayo waa allah intaa u dhigaya awina james u xidhay jeelasha waan soo dhameeyey sheekhe haddaad doonto sidoo kale barasaabkani gobolka awdal ee lagu eedaynayo in uu aflagaadeeyey diinteenna suuban ee islaamka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrimahaasi waxaanu guddoomiyahani gobolka awdal ee lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey diinta islaamku eedo culus dusha u saaray mid ka mida culimmada gobolkaasi awdal oo maalinnimadii shalay ahayd ku soo qaatay khudbadiisii jimcaha sheekhaasi oo lagu magacaabo sheekh xasan daheeye waxaan idiin sheegaya marka ugu horeysa horta qof islaaman ahay laa ilaaha ila allahu maxamedu rasuulullah ku shahaatay oo islaamku ah marka labaadna mas-uul baan sabab aan diinta ku caayay iyo ilaa qofku intuu xaflad tago diin iskama caaye xaflad baaba layga yeelay waa munaasabad aan diin ka caayay ma jirto oo meesha rays la yaabo oo aan diin ka caayay ma jirto nin diinta caayana mihida islaam baan mas-uul bane munaasabadan layga yeelay raggii kabalada hayay ee duubayey baa haddeer qaar halka joogaan kabalad baan haysay not inay ahayd wax ciyaar iyo safaad iyo qofba wuxuu doono iska odhanaya oo aan la helayn kabalada marxaatiya wacays iyo mustafa sama joogaan labada nin kabalada hayay hadda xusuusna adigu waad fadhidi marxaatiyay bay mufliin والله انت hadday soon qaba midda kale dad ka badan 100 baa fadhiyey anigu waa laga yeelay nin baarlamaan ay taagnaa oo ii joogay waxaan ku yidhi war waan degdegaynaa hadalka noo hormariya shaqooyin baa noo yeelay waayahay baan nagu yidhi hadalkiiba haddana naga hormariyey waan kacay والله waxay igu sugeen ninku fiyaarta noo baarlamaan oo baxayo aniga saacada ii xanibnaa baahay waxaan ku yiraahdaa dabaan soo noqdeen amba aniga ila tuujamo iska tiir inankii mikrofoonka hayaa yiri bax wuxuu taagan yahay meesha memberka ee laga hadlo soo dusha maaha bax buu warmaanada sheegay sabaan ku fiyaarada ku dhaweey markaan hadlayo halka laga baxso galamis bal in yar u jira albaabka warmaanada sheegay sahaayadana ku sheegayna bax
wax fagaara laga sheego maahayn in yaro daygu aflagaadoodu ahayd waayahay baan ku yeesuku jawaabtan baan markaa ka micnay kumana yooyaatimi karin usmaanana dhaweyne dad bibleeshka oo dhan baan la maqlayay waan iska baxay anigu dadigu yidhi xitaa joog baa jiro ma joogaya haddii ku shay kala baxdayay booliiska ninka u sheegay wuxuu inankaasi eedaraas igu sameeyey wax ka qabta anigu markaas igu jibiisay waan iska baxay booliisku soo qabtay waa la dhaafiyey anigu nimankii baan la shiray aan la balansanaa baan reerta lafteeda kula shiray waan intii aan la shiray baa markaa booliisku dabeedna fiyaaqdaan isku dhaafin anigu gaarigayga istaarasna way dhaafiyeen seshigeeyey diintaad caayda cidna kamaan maqal inta anugu xasan dihiye ka hor diintaad caayda cidna kama maqal فنعوذ بالله حسن يوحي أنا قلت مشهود لكن ور ده أنا رميستي هذا واحد كاس بايشر واحد كله ذي الشيء هو واحد ما قبل له ذلك الدنيا بكشرته الشرع يقول قف والبو قبلني أنا قالوا قبلني هذا قالوا قبلني حسن دي أنا قبلني قف الله لقفكي قف تبي ككرة وقبلني قف جالسين يسرعان كان إلهي بابله تريد وين كتواب وانا الشارع لبضع الرمول حسد هي راعي horta xasan masaajidka wuxuu ka dhigtay orientation maaha maalintii ugu horeysay ka hadlo maalintii ka horeysay ugu horeysay ee uu cid ka maago ama ka caayona maaha wuu caadaystay xasan waa nin al-shabaaba oo ku dagaalamaya dowladda dhan ee jirta doonaya inuu afku rido dabeedna cidlo ka helo halkay qalanka ka dagaalamayaan saaxiibadii ay kaga dagaalamayaan hub waxaan sheegayaa inuu isugu doonayo inuu aftagaalamo dowlad ku kala kaxeeyo qabaa'il dadka isugu diro waa nabiibi waa beenaale waa kadaab waa nin la wada yaqaano oo fiidiyowgiisii oo dhan baa la hayaa barasaabkii ugu horreeyey uu yidhi diin buu caayana miihi sababtu u leeyahna waxa weeye ee aniga imika dadka u keenay waxa weeye nin baa lagu jiray si aad ogtihiin oo ilaalinaya mashruucii ballaarinta biyaha boorame oo askariya waa lagu jiray ninka marka la waayo cidisha waa wax dalka oo dhan ka jira waxaa loo qabtaa eheladiisa iyo yeelkiisa iyo caqaashiisa anigu yagaan qaban guddi nabadgelyo ahaan baan ku shiray intii aanu islahayn nimankaa waa loo xidhi karayaa nimanka waxaanu haynaa anagu ilaa 7 nin ay ku weysodeen ciddii falka geysatay gacanta ku dishay ciddii la socotayba ciddii markaa loo hayn karayo ama loo qaban karayo aanu qabanay guddi nabadgelyo isii mustafa warqabta baan ku saxaanay nimankaa la xidho xasdeeshay waxa ku jirta hadalkiisa taliya qaybta markaa weydiiyay anaga noo xidhay baristaab ku xidhay isaga cadday doona arrinkaa waxa caddaana oo hadalkiisa khudbadda intii dambe ku daray wuxuu xidhay nimanan tolnahay oo u xidhan eg marka maxaa caddaanaysaa hala dilo iyo waxaanu iga sheegaya been abuurka oo dhan inuu u wato waata waraaqaasoo maaragtaan saxiixdii oo wada kaa guddiga intii nabadgelyada u taqaaniin baa saxeeday mid kuwaasana goonidiisa u yidi kagama waabanaya haddii ragga qaar kaga waabteen oo israadeen dee malaaci waxbaa baarkiin laydin yidhahdeen go-aankii aanu gaarnay aanu gooniga ma baxay ninka bixinaa kiraana ma jiro dee taasaan wada saxiixna
arrimaha nabadgelyada ee xuseeya gobolkan iyo boorame baanu u qabanay darteed haddii mashruucii biyo balaarintaha boorame lagu dilaynin haddii la heshiiyey anagu kama xumin laakiin waxa laga heshiiyey labadii qabiil baa heshiiyadii haddii la odhan doono waa la heshiiyey laakiin maana ciqaab lahayn ninka mashruuca ninka baadilka ku dilay ama cidda ku dishay ama gruubka ku dilay ninka askariga ee ilaalinayay hawl qaran ku jiray ee lagu dilay maana ciqaab lahayn idinka su'aalaya midweyne u taala ciqaabtiisi baanu u haynaa inaanu dadka u helo oo ka sharo ciqaabtiisi horaan ugu daray dadkii noo keena laba meelood oo kaliya fudbaan mayno dadka ama waanu heli ama iyagaanu keeni laakiin intaanu hadeer u haynaa waan idin sheegay soo meel fahmeelka waxaanu u haynaa ninkaa la dilay ciqaab buu leeyahay dadkii dilay ay leeyihiin ciqaabtoodu baan u haynaa haddii kale waxaa dhacaysaa in maalin walba nin la dilo jaamacadda lagu dilo wadada lagu dilo wadada wax allaale wixii hore male lagu dilo ay dabeedna ay wada noqoto haddii banka inta laga heshiiyo dabeedna aan ciqaab loo soo cidna loogu soo qaban haddii reer boorame dee diyaar ku yihiin anagu nabadgelyadooda aanu saa ugu haynaa maalin bana cid bay ku dhacay cidna maanta uga fasax qaadan mayno cidna iskaga dhismayno waa nabadgelyada annagaa ka mas-uula guddida nabadgelyada oo dhan aan ugu sarreeyaa waa saxeexday inaanu nimankaa hayno haddii la noo yimi waxaan ku sii dayno waan garan weye biyahaasi ma fasaxmayaan haddii aanaan dee qiirkiinin ama dadkii baanu haynaa ama degbiil baanu haynaa cidda saxeexooda laga doonayaana waa annaga oo aan ugu sarreeyo ugu horeeyo cidda laga doonayaa in biyaha dib loo bilaabo mashruuca biyo ballaarinta ee istaagay ee isu taagay ninkaa la dilay dartii ma wax kale isu taagay soo ma wada ogidin cidda laga doonaya dubi bilaabideeda inaan saxeexo inay nabadgelyo helayaan in dib looga shaqeeyo nabadgelyo looga helaya waa aniga dadkiina way baxsadeen cuqaashoodii iyo odayaashoodiina waa sii daayey dee kuma sii dayn kareen magaaladay dan u tahay inayn kuwana hayo looguna helo kuwii geystay dembiga lana ciqaabo biyahoodii in loo sii daayo haddii kale meel kasta oo magaalada ah ama gobolka oo horumar ka socdo bay ka dhacaysaa taasoo kale si aan uga dhicin mas-uul baanu ka nahay dowlad baa dalka ka jirta xasadiheeyo dowlad kama aha haddaan caddaynaya al-shabaab qayb ka midoo boorama joogto weeye oo ku dagaalamaysa inuu dowlad af ku burburiyo kuma la burburin karo wallaahi inaan ugu burburin karin wallaahi inaan ugu difaaci karin nin maadar galay inaanu masaajidka hadalu ka leeyo been abuura inaanu ku difaaci karin xasadiheeye waa caadayste beenaale kadaaba waxa xasad aanu haynaa oo laga eriyay masaajidada bartanka magaalada ku yaala laga eriyay aflagaado iyo cay uu ka shubay oo uu tegay kuwa koonayaasha aada loogu talagalay dadka qariibka inay ka soo galaan markaas media u yeedha oo ruuf dadka masaajidka jooga maanu la hadlay media ugu yeedhanay marka hore waa jiraan wadaadada kale soo yeeshaa laakiin xasuu ugu wacay inuu ka caayo masaajidna halkay diinta kaga taalo dadka in laga caayo masaajidka uu leeyahay waxbaa laga xukumi jiro waa run lagama caayi jirin wax laga xukumi jiro qofka la keeni jiro marka wax ka cadaadaan baa lagu xukumi jiro xasan maxbuub lagu cadeeyey mise isagu waa maxkamadii xasan maxkamadiina maaha dowladdu maxkamad bay leedahay maxkamaday leedahay kuwaasaa la geynaya kuwaasaa laga cadaynaya qofka dembiga wata kaygaana ahaade dabadeedna marka dembiga lagu helo de maxkamadda wax ka soo saari karta masagaa xukumi kara dil ما حكمي كريوا بين لك الداب وإلهي أنا أقول وحشيقي يعني وكتشنا حسن خامس على محمد كان الأمر ما يقول لي أقومت لسيه وقفت أقوم لسيه بهيك يسكتشنا يا كلا حساب تمام يوم كنت إلهي من كنت ديني لا سجل ما مسيني
xasan iskuuluu haystaa waa ninkaa isaga soo taagan waad ogtihiin fiidiyadu waad heli kartaan barasaabadii hore uu yidhi diintay caayeen ilaahay nebi xasan hadduu danta uu leeyahay ee reernimo waayo wuxuu ku dabaqayaa inuu dadka been ka sheego mas-uuliyiinta been ka sheego waa wax aana oo la yaqaano anigu ummaddan wuxuu sheegayaa horta inaanan waxaa gelin xasanna waxaa laga rabaa dowlad baa jirta meel dowlad la-aan agama helin aniguna dowlad baan jooga reerkoodana lama joogo isagana lama joogo dowlad bay keensatay xukuumad madaxweynada oo wasiirale oo la doortay bay keensatay oon barsaa waay halka waay xasan nin la jooga mihi isagii reerkiisa toona waa wuu cadaynaya hadduu cadayn waayona wuxuu gelayaa tallaabo sharciya laga qaaday si kastaba haatee arrintani ayaa ugub ku ah geyga somalilan waana markii ugu horraysay ee la sheego mas-uul xil ka haya xukuumadda laguna eedeeyo in uu aflagaadeeyey diinteenna suuban ee islaamka iyadoo ay dhowaan ahayd markii barasaabka gobolkaasi awdal ee magaalada boorama lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey diinteenna suuban ee islaamka taasi oo kicisay dareenka shacbiga ku dhaqan magaaladaasi boorama ee xarunta gobolkaasi awdal islamarkaasina ay culimada waaweyn ee gobolkaasi siyaabo kala duwan uga hadleen kuwaasi oo dalbaday in la mariyo sharciga iyo shuruucda diinta islaamku waxa ay ka qabto haddiiba ay ku caddaato mas-uulkani lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey diinta islaamka haddaba markii ugu horraysay xukuumadda somalilan waxay arrinkaasi u soo dirtay sidii loo xallin lahaa guddi ay horkacayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan iyo weliba abaanduulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan cabdirasaaq siciid bulaale guddidaasi oo soo gaaray gobolka awdal ayaa ka hadlay ujeedka socdaalkooda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa horta dhammaantiin waan islaamayaa gobolka awdal oo dhan waxaanu u nimi kolley shaqooyinkiiska caadiga ahaa un safar shaqaanimo caadi ah waxaanu ahayn wafdi baanu ahayn aniga iyo taliyayaasha ciidamada qaranka ee kala duwan qaar ka mid ah 2 jananaar iyo gaashaanla sare xubno ka tirsan farsamo yaqaano ka tirsan howlaha guud wasaaradda howlaha guud agaasimaheeda waaxda dhulka kulle waxaan u nimi hawl shaqo waa maqalisa mariyaan ba shaqo yaro ka jira meel dhul oo la isku haystay iyo farsamada caynkaas aduu xagga amniga wax quseeya oo kala duwan ayaan u nimi insha Allah ta'ala kulle waan si joogdana maalmaha soo socdana marka wixii ka dibeen wixii wareed dambe kala qaadan doonaa iyo xaaladahaas marka dambe kala qaadan doonaa imika inta ay hore amadiisi sheegin hadii la helaado marka sababtaas aan hawshin insha Allah wali ma dhex gelin laakiin waan geli doonaa hadii la helaado marka inta ursa galay hadba waxaan marayna kullu waan ka socon doonaa hadii la helaado meel fiican oo maraysaa hadalku wuxuu noogu dhan yahay wasiir ku-xigeenka dadku markay daanaga arkaan General Muuse oo ah taliyaha aaga bariga oo ku joogay hawl shaqo Hargeysa isna ila socda oo guddiga wafdiga kamida kaashaala sare Cabdidheere hogaanka gaadiid kamida kulli marka kamarada laga arko nimanka tootaysan waxa la oranayaa wasiirka iyo hawlaha guud agaasimaha dhulkuna uu nala socdaa maxoog ba ma ahay waxaan u nimi shaqo arintii ciidanku ay ugu horeyso halkii airport ka sokaysay ay ugu horeysay dhulka ciidanku ay fadhiyeen oo ma sharci bay ku fadhiyeen mise way iska fadhiyeen madadkeele yaale madan guudba arinta oo la gali doono la guda gali doono ay ugu horeyso ciidan ahaan waxaanu ciidan ahaan isoo soo raacnay intayda soo mas'uul ciidan ahaan inaanu ciidanka xaqiisa hadaan xaq lahayn aanu ka saarno hawlaha kale ee gobolka abnina waanu nimi sida wasiirku kastabaate waxa laga wada dhul sugayaa waxa ay ku dambayn doonto arrinkani iyadoo dadku in badan ay filanayaan in mas'uulkani haba yaraatee haddii ay ku caddaato aan wax nastaaxa loo gelin balse la mariyo sharciga iyo shuruucda diinta islaamku waxa ay ka qabto maadaama uu aflagaadeeyeyo sharciga iyo shuruucda diinta islaamku waxa ay ka qabto maadaama uu aflagaadeeyey diinta islaamka iyadoo ay horena si weyn uga hadleen annagoo xilka ka maqnayn muddo sanad iyo 3 bilood ah waxaan u adkaysan weynay xaaladda degmada ka taagan inaan ka hadalno haddii aan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka horta barasaab ma haynaba
markaan xaqiiq ka wada hadlayno barasaab diinta caayaya oo weliba joomitir weeye ninkaasi barasaab maahine afar jeebla u shaqeeya oo hurdada gurigiisa intuu ka soo kaco kac beerta ree hebel baan tegaynaaye oo military weliba la qaato caalamka meel ay ka dhacday goormuu noqday joomitirkii isagu dhulka mitrinayay meeshan dadka lagu laayay waa markaan xilka imid hawshii ugu horraysan qabtay dan guuda bay ahayd in cagaf gelinno waxa maanta hadal ka soo celiyey labadooda dhul ka doonayay oo qaadanayay militarina u isticmaalay booliisku xaaladda meeshii la socdeen waxay uga tegeen xaqiiqdan idin sheegaynaa markaa barasaab wax la yidhaahdo gobolkani joogaayey ma jirte waa ninkaa dib jirka diinta caayaya ee joomitirka afarjeeble u noqdee ummadda ha laga soo gaadhaan leenahay labadaa afarjeeble iyo barasaabka ninkaa lagu sheegay joomitirka u noqdaa degmadan god ku riday nabadgelyadeeda waana xaqiiqda markaan ka hadlayno madaxweyne lama arag barasaab maayir intuu soo kiciyo military intuu soo qaato ummadaanan hubaysnayn rasaas la dhaca laakiin boorame ka dhacday aad baa naga xuma mas-uuliyad darrada ka jirta gobolkii degmadiina ka mid tahay dadweynaha reer booramana waxaanu sheegaynaa hoos baad isku xamataane sida ummadda kale soo fadhiista oo nala xisaabtama waad arkayseen maayirka berberaad waxqabadkii uu soo bandhigay oo ummadda soo hor fadhiistay lacagta kabka la yidhaahdo ama dowladda dhexe noo qabato sharciyanba waxqabad mooyaane wax kale lama gelin karo waal meeshan mas-uuliyad daraa ka dhac cunno ka badan waxaana waxa qaba dibjir dhillo laaluush wixii loo baahnaaba kumay bixin waxaas ilaah baan inagu dhaarshay madaxweyne hantir dhowr degdega u baahan tahay haddii aanan musuqmaasuqa la abuurayn ilaahay baan kugu dhaarshay runtii cashuurta ummadda laga qaado in nabadgelyo darro lagaga shaqeeyaa waa xaaraam waa in nabadgelyada iyo caafimaadkooga iyo waxbarashadooda lagaga shaqeeyo saddexdaana wax lagaga qabtay nooma muuqato haddii aan hoos u soo daadego maalintii aan xilka la wareegayey waxaa laygaga tegay dayndan $270,000 oo dollar shaqaalaha iyo goluhuna waxay lahaayeen 4 bilood oo mushaar ah maalintii aan xilka wareejinayeyna shaqaalana mushaar ma lahayn shidaalna lama lahayn lacagtii ay dhiinkii gudoomiyahaygu la wareegayna waxay ahayd $287,000 oo dollar halkaasi waa qodobka labaad kabkii lacagta kabka la yidhaahdo waa lacagta cashuuraadka loo qabto dowladaha hoos 2019 iyo 2020 ilaa bishii 6 kabkeegii ayaa la soo qaatay oo dhan 400,000 oo dollar meelay ku dhacday idinkaa sheegaya sidahayd 16 waxay korodhay oo tegtay 18 bilyan iyo 700 dakhli kororka halkaa yimidayna waa 2 bilyan iyo 400 malyan waa lacag u dhiganta 300,000 oo dollar lacagtaas marka la isku daro waa 1 milyan iyo 80,000 oo dollar dakhligii kale hadda weli ma aanaan gelin degmada laga ururinayay iyo kashtamka wixii ka soo gelayay waa intaa horeen soo sheegay ee 1 bilyan iyo 80 malyuuni waa lacagtii aan ka tegey oo 287,000 waa 400,000 la soo amaahday waa 300,000 dakhli kororka haddii aan u soo noqdo dakhliga cashuurta degmada dadweynaha laga qaaday ardiyada liisanka iyo daily collectionka iyo kashtamka cashuurta ka soo xirootay waa 11 bilyan oo shilinka Soomaaliland bishii celcelis ahaan dakhliga soo gala waa 900 milyan
lacagta mishaar ku baxdaay waa 350 milyan waxa soo haray halka waa 550 milyan calaa bil meelay ku dhacdo 550 milyan calaa bil ma hayno sharcigu nooma ogola inaan deyn soo qaadano golahana uma ogola mas'uuliyiinta saxiixa u igmanna hadday deyn soo qaataan sharcigu wuxuu leeyahay qodobka 19aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 23 qodobkiisa 19aad mas'uuliyiinta saxiixa u igmanna hadday deyn soo qaataan wuxuu leeyahay iyaga loo raacaya lacagtaasi dadweynaha waxaan u sheegaynaa maanta lacagta maqan marka wixii la qabtay aan ka jirno ama kawaan ha noqoto ama wadadayna saawir ka dhaadhacda ha noqoto ama 300 mitir taqwaya goolada ha noqoto ama dhayna iyo xaajiyad iyo gaadhi fiiro duqeeyay oo 7 cishaan la wada ha noqoto markaan isku wada darno lacagta maanta maqan marka intaa waxbaan qabtay uu leeyahay laga gooyo xaqiiqda markaan inii sheegno waa hal waxa weeyaan 980,000 oo dollar ka hadlaynaa hadda ma aha wax beena waa xaqiiqatan wax jira weey suuliin baana hay'ad kasta oo dabagal hanti dhowr wasaaradda arrimaha gudaheed maamul la dagaalan musuqmaasuq intaba waan geynay marka waxaan baaq u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdiraahi Ismaaciil Saylici hanti dhowraha guud ee qaranka intaba waxaan ugu baaqaynaa wardegmadii Boorama musuqmaasuqa baahsan ee hantida ummadda la lunsaday ay inta la egtahay baa ka dhacay ee waliba xaalad nabadgelyo darro lagaga shaqeynayo is lagama xaal siiyo wuxuu ku hadlay ninna lagama xaal siiyo gudoomiyaha iyaga degmadu shir jaraa'id wuxuu ku qabtay waxaan soo iibiyay buu yiri booyadii gaamurka ruguleydii agaftii midida hoosta ku lahayd gridhartii iyo baldowsartii silsilada lahayd war ilaahay baan inagu dhaarshay mas'uuliyiinta qarankow bal yimaado oo halka yaalan annagu ma haynay weydiiya waa hantida la soo amaahday lacagtii lagu soo qaatay lama hayo waxaan ka seexan weynay xaaladda degmadu halkay marayso maanta waxaan indhaha ka qarsan kari weynay lacagta masaakiinta iyo islaanta saqadleyda ee kunka shilal xoogaan kaga soo qaadno iyo waxay ku baxayso ee qaldan ma ka seexan kari weynay shirkaygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inay bulshada reer Boorama ee wanaaga jecel inay nala wadaagto bal waxaan degmada ka jira iyo xaaladeeda siday tahay inay nala ogaadaan haddaba waxaan leenahay imika cibaaro kalaaba soo baxdo gudoomiyaha degmadu uu ku shaqeynaya waxa la yiri jidadku bay iibsadaayo dadka guryaha uu hormarinayo lacag ka qaada waa sababta imika aan garan laanaay ilaa imika waxa weeyaan jidkii baa la iibsanayaaba waxaan leeyahay gudoomiyaha degmadu waad ogtiino jidadkii oo dhan way xidhan yihiin halkan khayriyadii waa guriga ka iibshay jidkii halkaa marayay wuu yareeyey jidkan hoos u dhaadhacee maxay ahayd sisibta mara wuu yareeyey oo adiga arkay jidadkii magaalada oo dhan saas u wada yareynaya war haddaba waxaan leenahay bulshada inta wanaagga jecel degmadii halkaasay maraysaa in maalin dhow waxa weeyaan waxaan ka baqaynaaba dee bulshadu inta damiir kale waxaan u sheegaynaa inay sidan xaaladda ay ku jirto xaalad ka bedelan ay arkaan wasaaradda arrimaha gudaha waanu gaarsiinay xafiiska antidhowrka waanu gaarsiinay xafiiska golaha baarlamaanka ilaalinta guddida ilaalinta hantida qaranka iyo dabagalka musuqmaasuqa waanu geynay dokumentiskaas oo caddayntoodii iyo waxoogii wata guddida ay Boorama way yimaadeen runtii maalintii ay yimaadeen waxaanu nidhi waa rag waaweyn oo mas-uuliyiin aanu nahay
wixii aanu idiin sheegnay xalaal iftiin baa la cunaaye guddoomiyaha iyagana soo hor fadhiisiya aanu isku caddayno runtii way naga cudur daarteen waxay idhahdeen maxkamad bay noqonaysaaye warkiinni waan haynaaye waanu guddoomiyaha weydiinaynaa wixii uu jawaab naga siiyo waanu saluugnay guddidaa ka horraysay qaabkii ay maraysay maraannu ku nidhi oo iskaayi soo hor fadhiisiyo haddaannu sheegnay aanu idiin caddayno runtii guddidaanoo ixtiraam badanayo xildhibaanada waxaan ka filayaa in dariiqeedii ay mariyaan waxaasi sidaan ugu dhaaranay bay ugu dhaarteen waxaan kaleen halkan anigu baaq uga dirayaa gobolkan madaxda heer qaran ee gobolkan ka soo jeeda waar haddaydaan idinkuu damqanayn ood maalin baynanka jooga ku difaacis leedihiin musuq maasuq iyo war waxaasi ilaahay baa idinkala xisaabtamay annagu ka golo deegaan ahaan waanu xushoonayna sannad iyo 3 bilood ninkii shalay toole waxa weeyaan 400 kun ee deyn ku dhawa lacagta deynta degmada kaga tagay ayaa mar labaad nagu soo noqday waa cibaara duune waxaanu islahayn uu ay arkay waxbuu ka bedeli uu weynaaday waa nin mar labaad soo noqday bal dhowroo ka suga inankii xeeladunbay u sii noqotay wuxuu u weynaaday musuq maasuq iyo wax cunista intaasaan khibrad u soo helay buu yidhi guddoomiyaha iyagu wuxuu marayaa inuu joomitiro gaara samaysto inuu dadkii dhulka waxa weeyaan maalinba ciidan geliyo intaas oo beerood bay xabadi ka dhacday intaas oo beerood ayay xabadi ka dhacdo dad lagu dilay dad lagu dhaawacay sifo kale wax ku noqotayna ma jirtee waa hungurigu ka doonaya guddoomiyaha iyagu dadkaa beeraha ku haysto wuxuu ka shaqeeyaa shaqadii degmada loo igmaday maanta annaga waxa weeyaan waxa noo sharafa degmadaasay wax ka qabsoonaan degmooyinkii waan ka hadhnay waxaan kaloon ku darayaa bala saabka iyagu ummadda waa nuu sasabayno waxaanu lahayn waar bal waa nin odayo weyne ka dhursuga intaa uu joogay muddadaa u joogay waxqabadu gobolkaa soo geliyay haba yaraatee ma jirto wuxuu saaxiib kula noqday maayarkii dhaca iyo boobka ayuu saaxiib kula noqday wixii uu mas-uulka ka ahaa uu garab maray waxa weeyaan maalin baafku maayarka ku hadlaa beerta ilaal dhul baynu ka qaadaynaa buu xabadda u amraa waxaan leeyahay cabdiraxmaanow hoos baan kuula xantay kor baan wax kuugu sheegay waanu kuu nimi shaqadaadii baad garan weyda markhaataanu ka noo halkaa waan adigii ka saaray maantana tii way ka soo waado in bulshadiisi babligaa diintii u caydo ummaddani adeer waxaad u tahay madaxweyne gobol baad u tahay waxaa markhaati kaagaa dhigaagu habeen kasta tiifiyada waxqabar iyo xadhig bay jiraan adiguna nabadgeliyo darro iyo cadho iyo hanjabaad iyo diincay baad la soo taagan tahay waar adiguna wax isku falbaan kuleeyahy horta marka hore waa sidaa ay sheegeen xildhibaanada wax badan bay ka soo hadleen waana caddayn ugu filan degmada boorama degmadii boorama sidaad og tihiinba god bay ku sii socotaa maalin kastaba waxaa dhaca in uu master saleebaan mar waliba uu sharciga uu ku tunto mashaariica iska daayee wixii ummadda ee ay lacagahooga iyo hantidooda ay ku bixinayeen waa cashuurtooda ku bixinayeen meel alliya meel ay marto annagu ma garanayno annagu kitaab baanu gacanta ku dhaaranay wallaahina indhaha laga qarsanayn wixii jira waa la isku sheegayaa wixii jira waa la isku sheegayaa in badan baa aan lahayn dadweynaha waxaa jira dad haddaanu maalmihii ugu horeeya haddaanu aan ku bilaaw lahayn oo dhaliilihiisa aan sheegi lahayn qaar baa ku odhanaya waa waxoogi waa ummaddii xitaa na soo dooratay aanu wakiilka ugu ahayn degmada boorama aanu sharciyadda ugu ilaalinaynay qaar baa ku odhanaya waa waxoogi bay bilaabeen war ilma adeerayaal marka meelaha la joogana waxaad tidhaahdeen degmada waxba lagama qabto oo waa cashuurtaydii waxaliya waxa lagu qabto ma naqaanaad tidhaahdeen war haddaad damiir leedihiin waa degmada boorama aan sheegay haddaad damiir leedihiin waxa hanti maqan waa arkaysiin ay xildhibaanadu sheegeen
waad arkaysiin waa inta damiir kalan sheegaya inta kalena ilaahay ha u naxariistaan leeyahay ninkaan waxba la socon war walaalayaal anagu waxaan markhaati aanu nugannahay dadkiina soo doortaa tegin hantidiinan inaanu nii ilaalino ayaa noo sharaf ah noo karaamo ah inigaan wax nagu nahay haddaan nii sheegi weyno waxa aad inigu aad bixisiin cashuurtiina bixisiin iyo xaaladiinu halka ay marayso inaan nii sheegno mar waliba weeyaan in lagu tagri faro ma aha hantida degmada boorama ee ka soo gasho boorama waa magaalo weyn waa caasimad dakhliga soo baxa waa la yaqaanaa wuxuu yahay masar saleebaan ummadda ha u biyaamiyo dakhliga ummadda laga ururinaya cashuurta laga ururinaya halka uu mariyey waxaasoo lacagaa ku maqan hantidii ummadduu iibiyaa maalin waliba beeruu iska tagaayo askar militariyu ka haystaa isagiiyo ninka cabdiraxmaan ilaahay waa bara saabka ah maanta waxaan maqlay wuxuu joogaa hargeysa mar alle markay wax dhacaan war cabdiraxmaan xaqdarradaad kula heshiisay saleebaan oo ku yidhaahdo waa ballood baa meelkaa siiniyo askar ii dalab saata ku kaxaysataa maalin dhoweedu waa galbeedka buuran waxaa ka dhacay dhul danguuda oo la yaqaano ayaad u kaxaysatay askar nin baad ku dhaawacdeen tii horaanu ogeyn halka waqooyiga ka dhacday in adeerkaybaad intaad askar aad kaxaysateen dhul ay dad leeyihiin intaad geyseen baad ku rasaasayseen wallaahi bilaahi dib dambayse in lagaa yeelin muxuu master barasaab wadadweynihii booramana waad ogtihiin maalmahan waxaa ka jira in meel xaflada oo bablig ah oo ummadi joogto inaad diinta aad ku cayday adoo mas-uul isku sheegay adoo mas-uul ah gobol khayrkaa barasaabyada somalilan waad aragtay maalin waliba mashaariicay furaan dadkay dhex socdaan malaade haddaa lagu wuri waa gobolka hadda waa laguu soo diray inaad curyaamisid curyaamin maysid waxaan mar labaad aan u sheegayaa dadweynaha reer boorama ee maalin waliba waa cashuur baan inuu qasbaa bixiyaana la yidhahda waad bixisiin dad waxaad tihiin aad iyo aad u dulqaad badan war haddaba waxaan leeyahay dadweynaha boораmow indhihiina waxaad ku arkaysiin baan anagu nii sheegaynaa xalaal iftiin baa la cunaa degmadii boorama hog bay ku dhacday cashuurtiina annagana la xisaabtama oo noo yimaado nala xisaabtama iyadoo ay horena si weyn uga hadleen culimada waaweyn ee gobolkaasi awdal oo uu horkacayo sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo ah sheekhulbeledka gobolkaasi awdal waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ku sugnaayeen wafdi ballaaran oo xukuumadda somalilan ay u soo dirtay gobolkaasi awdal si loo xalliyo arrimo xasaasi ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa gobolkaasi awdal ee magaalada boorame arrimahaasi oo ay ka mid ahaayeen khilaafka soo kala dhex galay maamulka gobolka awdal iyo culimada magaaladaasi iyadoo qaar ka mid a culimada magaaladaasina ay ku eedeeyeen barasaabka gobolkaasi awdal in uu aflagaadeeyey diinteenna suuban ee islaamka walow aan wax caddayn ah loo haynin in uu aflagaadeeyey sida uu isagu ku doodayna uu sheegay in aanu haba yaraatee caayin diinta islaamka islamarkaana uu yahay qof shahaadanaya oo muslima balse ay tahay taasi been abuur cadde halka culimada qaarkeedna ay ku doodaysay in arrimahaasi loo hayo markhaatiyaal balse aanay soo bandhigin cidda saxda ah ee markhaatiga ka ah in mas-uulkaasi aflagaadeeyey diinteenna suuban ee islaamka sidoo kale waxaa ka mid ahaa qodobada wafdigaasi u tegeen dhul ku yaala magaalada boorama islamarkaasina ay rasaas isku weydaarsadeen qaar ka mid a shacbiga ku nool magaaladaasi boorama iyo qaar ka mid a shacbiga ku nool magaaladaasi boorama iyo qaar ka mid a ciidamada qaranka somalilan iyo weliba arrimaha biyaha magaaladaasi oo iyada muddooyinkii ugu dambeeyey muran badani ka taagnaa islamarkaasina sababay in hal qof ku dhinto
arrinkaasi. haddaba wafdigani oo ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka qalabka sida abaanduulaha ciidanka qaranka Somaliland cabdirasaaq siciid bulaale iyo saraakiil kale. haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo maanta kulan la qaatay madax dhaqameedka iyo waxgaradka magaaladaasi Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa ka warbixiyay ilaa hadda waxyaabaha uga qabsoomay hawlihii ay u tageen gobolkaasi, isagoo sidoo kalena ku calaantay culimada gobolkaasi Awdal in aanay jirin haba yaraatee wax caddayn ah oo ay hayaan in mas-uulkaasi uu aflagaadeeyay diinta islaamka balse arrinkooda uu yahay kutirikuteen, isagoo kula dardaarmay in laga waantoobo hadallada kutirikuteenta islamarkaasina ayna diinteena suuban ee islaamku waafaqsanayn in la fadeexadayo qofka muslimka ah balse la nasteexeeyo haddiiba aad aragto in qofka muslimkii uu ku jiro qalad amaba uu galay qalad. arrinkanina uu ahaa arrin lagula degdegay warbaahinta oo aanay haba yaraatee ilaa hadda aanay jirin cid haysa wax caddayn ah oo ku saabsan in mas-uulkaasi lagaadeeyay diinteena suuban ee islaamka. ilaa iyo haddana aanay jirin wax cad oo ay hayaan culimadu balse ay masaajidda uun khudbaddii jimcaha ku soo qaateen isla markii dambena arrinkii uu marba marka ka sii dambaysa uu cirka isku sii shareeray, taasina ay sababtay in warbaahinta la isku weydaarsado hadallo xanaf leh. waxaa kale wasiir ku-xigeenku ka hadlay arrimaha nabadgelyo iyo guud ahaanba halka ay u marayso dhulkii ay soo xabadeeyeen qaar ka mid ah shacbiga iyo weliba ciidanku iyo murankii ka taagnaa biyaha magaaladaasi Awdal ee magaalada Boorama. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo isagu arrimaha iyo arrimo kaleba uga xog waramaya isla markaasina kulan la qaatay madax dhaqameedka gobolkaasi Awdal ee Boorama ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa dhammaantiin baan salaamaya salaadiinta cuqaasha ugaasida boqorada iyo title kasta oo madax dhaqameed iyo maamulka gobolka dadweynaha kale bahas xaafadda dhammaantiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. inta kadib kulli ana ku roodyaasha suuqayeed in magaalada Saxmaan joogay kulli waxaan u nimi ama ha noqoto dhul la isku haysto oo meel kale wax badan ka dhacay meel madhowdo maqliseen oo ciidanka military wax isku xabadiyeen dad shacbi arrinkaas aan horta ugu nimi ugu horeyntii iyo meeshii biyaha iyada ku dheeyaa waxaan ugu nimi arrinkaas aan u nimi naga hawsha dhulka intii badan waa dhamaynay oo noo dhantaasi xaqii dhulka la isku xabadiyay oo dhan tahay. waxaan saafi doonaya in kala hadlo kulli maalmaha waa ugu Boorama waxa ka jiray bariyahan daba xataa maalmaha ma aha buuq yaro hoosta ku guuxaya oo wax saxaana aan la cid sheegayn haddana hoosta buuq ka jiro ugu dambaysatii maalinta jimciin magala dhaafay masaajidada dawladda baxay arkiiseen oo culimada magaalada waaweynid ayaa soo fadhiistay jimcaha salaadii jimcaha diinteena waa nasteexo oo diinteena demo qol xataa qofka la fadeexado xataa wax sameeyo qofka hoos waxa lagu sheegaa laakiin fadeexadu waa culimada waxay ka hadlaysay oo lahayd maxay ahayd ninkii gudoomiyaha gobolka diintu ahay wax cadna ma ahayn oo waxa hadalka dhibta sii weeyeen waxa la igu yiri ninkaas diintu ahay wax ma aqli galataas waxa la igu yiri qof markuu cadayo waxa ay yiraahdeen intaas qof baan dhaari intaas qof markhaatiyaan dhaari arrintaas ninka way ku caday marka dambigaas u galay oo salaad uu jimcaha ma xitaa la suudii haduu kii hore ka gaarsiin waayay inuu dambe la sugaado laakiin waxa la leeyahay nidaas diintu ay waa arrin yar oo dabiici ah ligeliyo qofka inta laga yar arrin dib badan oo fool bay noqonaysaa horta ciidan diyaalo ka hadlayso la arrinta bal ama way jirtaa ma jirtaa ama wax ka bixisan ma arag waxa ka horeyso kale tii kale maxay ahayd biyaha ilaa xukuumaddu waxay diyaaraaday in laga soo raro qalabkii biyaha meesha oo SDF biyaha tirmeesha ka soo saar karmayna waan ka rareynaa Soomaaliya laba boqol meelood oo bilabiya ayaa jira oo biyaha oo hay jooga marka dad biyaha de marka shaqaalaha iyo dadka meesha uu shaqeeyay biyaha soo saaraya mashruuca biyaha SDF kulay maka de ammaankeeda hadaynu ilaashan karayno oo ay biyaha u baahannahay biyo dib loo soo bilaabi doona haddaba waxaynu u baahannahay wadada la soo bilaabayaa Djibouti iyo Boorame halka xabada ka dhacday Boorame maanta ama nabadgelyo ragtida ka dhacda iyo halka qof la yiraahdo waxa waa gaalo isku xiran gaalada biyo ku iyo ku kale isku xiran ay xataa meediya Afrika barona argixisay bilaay baas ka sheegay oo ka gudbiyaan dooxo inta riboodada isu geeyeen meediya waa ka mid xabada
meel ammaan darraa oo nabadgelyo darraa haddaynu maalin walba ku sheegno kaga sheekayna ma la yidhaahdo waxa weeyaan horumarkii oo dhan way xinaysaa waxaasi ninka doonaya markaa inay ama gobolkani wax noqdo ama somalilandba wax noqoto wadada boqolaal bilyan dollar baa ku baxaya imika waa la soo bilaabaya nabadgelyo kasta wax kasta oo carqalada ama waxyeelaa oo ka yimaada goboladan ama goboladan kaleba dhibowka ka dhacaa berbere oo keenaysa marka horta balena arrinkaana culays odayaashu inay isugu tagaan oo waxgaradku isugu tagaan oo waxa weeyaan dadku haddaan iyagu shacabkii shaqaynaan askar wada noqon oo wixii ka hortagin ciidan iyo dowlad wax ka qaban karsa ma jirto waxa loo baahan yahay haddaba arrinkaan inaynu culays saarno saaka waxaa idinku leeyahay waxaa inaad ka qayb qaataan nabadgelyada gobolkan oo biyaha ka qayb qaataan oo idinku askar ka noqotaan oo cidda xun ee wax samaynaysa waa wax yaro dhifrina waa qof iyo laba waxaa inay idinku gacan kusoo qabataan oo yaan odhan intiina kale reer hebel bay ahaayeen oo yaan reer hebel baa waxaa sameeyey ku egine reer booroob dhan way saamaynaysaa kuwii saamayn mayso jamaal oo dhan bay saamaynaysaa gobollada dalka o dhan bay saamaynaysaa markuu qof wax sameeyo haddii tiraahdo waa reer hebel oo annagu waxaan ku eegalaan qolada reer hebel baa waxaa samaysay oo annagu shaqo kuma leyin ma hadde waa inaad qabataan oo reer hebel ka qabataan idinku ayaa laydinka baahan yahay odayaashii salaadiinta maxay ahayday waxaa idin canaanaya de waxa weeyaan wax dan weeyaan waa dan baynu ka hadlay danteena weeyaan arrinkii kale aanu u nimiy xagga dhulka sidaan horeba ku sheegay uu iska dhan yahay intaa hor masaaka kulle idinku yeedhay oo loo baahan yahay in arrinkaa ka qayb qaataan salaadiinta iyo cuqaasha abtiyaal arrinkaa inaan ciidan waxba ka qaban karayn oo ay dawlad wax ka qaban karayn oo haddaydaan idinku u baahnayn magaalo ahaan shalay waan tegey goobtii meesha ay biyaa laga soo saariyey dadkii deegaanka waxaan ku dhaha alaabtaan imika rarayaa baan ku odhi dadku way baroortin waxay dhahaan naga raraya annagaa ilaashanayne oo annagaa dibdimaysa waxaa soo dhici maayaane annagaa rarayna anaga rarin loo daaya marka adiguna arkaa inay sii xoojisaan ayaan u baahanaa in weeyaan deegaanka ku halaynin weeyaan deegaanka kusii halaynin oo suldaan laguna habar wadaagde waxaa dhan waad sii kala gargaranaysaa maalin quraba kabaa hole biyaa noo daaya ma odhan marka arrinkaasaan doonayey inay culays saartaan aynu saas ku nimaadno oo ciidanka la shaqaysaan oo bada saabka waxaa lagu sheegaya haddii ku caddaatana de waa lagu qaadi haddii kalena dee cidda waxaa la leeyahay tiri kolle waa laga daba tegay arrinkaa waa ma maxkamadaynu gudbino oo imika isaga waxaa idin maxkamad lasoo saaro marka lagu caddeeyo haddii kuna caddeey waan eegayna maxkamadda horgeynayna cidda waxaan tiride ayaynu horgeynaynaa marka intaas waan idinku yeedhay aad iyo aad noo mahadsan tihiin wafdigani ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida ee somalilan ee ku sugan gobolka awdal ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada boorama 3 maalmood ee ugu dambeeyey kuwaasi oo iyagu u tegay xalinta iyo soo afjaridda arrimahaasi aynu hore usoo sheegnay iyadoo qodobka ugu weyn ee la xusi karaa uu yahay qodobkaasi ah mas-uulkani lagu eedeeyey inuu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka balse aanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iyo hadda lasoo bandhigay in mas-uulkaasi uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka iyadoo mas-uulkuna uu ku dooday in aanay gebi ahaanba waxba ka jirin eedahaasi lagu eedeeyey inuu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka halka culimada waaweyn ee gobolkaasi qayb ka midiina ay hore u sheegeen in ay jiraan dad caddaynaya in mas-uulkaasi uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka ilaa iyo haddana ma jiro war rasmiya oo ka soo baxay in uu mas-uulkaasi aflagaadeeyey iyo in kale waxaanaynu ka wada war sugi doonaa halka ay ku soo biyo shubato amaba ay ku dambayso arrintani iyadoo la filayo in maalmaha soo socda lasoo sheekh xasan daheeye oo ah wadaadkii ugu horreeyey ee ka hadlay wararka sheegaya in barasaabka awdal uu aflagaadeeyey diinteena islaamka islamarkaasina jimcihii hore isagu kusoo qaatay khudbadiisii jimcaha kaasi oo barasaabku uu ka jawaabay eedahaasi uu sheekhu usoo jeediyey islamarkaasina sheekhani sheekh xasan daheeye ku tilmaamay in uu ka mid yahay ururka argagixisada al-shabaab kuna sifeeyey sheekh yaqaana wanjalaada amaba been abuurka waa sida uu barasaabku hadalkiisa u dhigay ayaa maanta oo jimco ah waxa uu mar kale ka hadlay hadaladii amaba khudbadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan islamarkaasina maalintii shalay ahayd kulan la qaatay kaga hadlay xaaladda guud ee boorama kaasi oo wasiirku maalintii shalay ahayd kulan la qaatay madax dhaqmeedka iyo waxgaradka gobolkaasi awdal ee magaaladaasi boorama kaga hadlay xaaladda guud ee boorama iyo weliba dhacdooyinkii halkaasi ka dhacay iyo ilaa hadda waxyaabihii uga qabsoomay hadalkaasi oo wasiirku sheegay
in aan ilaa hadda lahaynin wax caddayn ah oo caddaynaya amaba aan lahaynin in culimmadii iyo dadkii ku eedeynayay mas-uulkani in uu aflagaadeeyey diinteenna suuban ee islaamka aanay soo hordhigin wax caddayn ah ayaa haddaba sheekh xasan daheeye oo isagu mar kale maanta ka hadlay waxa uu tilmaamay in aan haba yaraatee wasiir ku-xigeenku u dhabagelin arrimahaasi islamarkaana uu dhinac garabka saaray waa sida uu isagu tilmaamayo sheekh xasan daheeye isagoo xustay in caddaymaha ilaa hadda uu raadinayo wasiir ku-xigeenku uu hayo cali xaraare oo ku sugan maraykan waa sida uu tilmaamay sheekhaniye taasi oo u muuqatay in sheekhu cali xaraare uu markhaati ahaan u qabsaday halagu soo caddeeyo dee cali xaraare nin la rabo minnesota jooga maraykanka jooga ayaa waxaan ka arkay youtube-ka isagoo leh reer boro hadday u baahan yihiin markhaati anaa u soo diriya videoga waxaanu carabka ku dhuftay in boorame laga xaalad abuurayo taasina aanay soconaynin waa sida uu isagu xasan daheeye hadalkiisani u dhigaye xasan daheeye ayaa hadalkiisa ku bilaabay sida tan يعني روح الله هي عدالة ده لو هدو وزيري هاي أما محمد كصوده أما وحده كصوده إن عدالة مرو دحدحاد هذا اللي بهيه وما تحسن سما دحدحاد ما هذا اللي بهيه وايو كل وزيري هاي أنا وياه معناها لكن هو عديين أنا وياه وما دلوا وياه hadduu sawtago ka hadlayay hadduu wakra ka hadlayay hadduu meelo kale oo maarataanay gacan tubleynayona shaqo ku lahayn oo maaragtay dhulkaa biyaha uu tagay ah una odayaashii waddankaa lahaa iyo kii suldaano ahaa iyo dadkii maaragtay ay khusaysay cidnaba kaxaysan au ka hanjabayay waxa weeye arrintani diinta horta qofna ma leh diinta ilaahay baa iska leh إن الدين عند الله الإسلام إسلام كاس العاية إلى رأسكله نكا أضيعنا أنا ولا دعوة إلى بل الدعوة لكن محكمة ده نقول كجولة يبدأ علماء واحد وكيل كيمين إلى إله الدافعان يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله من ينصركم هذا لا يقدر الجرتان يسوي يقدر الجاري ولا الدين دين تيس العاية oo ilmihiisa la caayo oo maagiisa la caayo oo iska dhafay tagi weena ilaahay weena la caayo haddii ay dadka u tahay kaftan oo u tahay ka warrama ninkan wasiirka uu sheegay maalmahan meelo dhex soo socday iyo hareerada waxaan leeyahay cadaalad ma aad samaynin sheekh albeedkii ma arag bal hadduu xitaa sheekh albeed ku arko oo maarta lidaado marindaadaas bal culimo ahaan maxaa waxaad ka qabtiin iyo aan isla eegno شون بافكيسا كو هادليا هلو سو عديو دي علي حرامي لا رabo minnesota jooga maraykanka jooga ayaa waxaan ka arkay youtube-ka isagoo leh reer boro hadday u baahan yihiin markhaati anaa u soo diriya videoga waxaa la yaableeyaan wagteed waayo adilada maanta sidaas ah adilada saas oo nin walba hadalkiisa uu yidhi caalamka dhan markii gaarayaa taa waxaa ii sheegayaa ninka wasiirkii arrintaa dariiqeedii ma u marin محكمة مارتي موتين أو قريب محكمتها لا حلين دم باريا لا حلين شرعي لا حلين علماء لا حلين أنا أعرف ما في ده هو يوم كسر عدايا وأيه كسر عدايا ليه اللي درس كان شيء مو بجوره إيه أيوة كسر كسر عدايا برير بورم ودم بام الجو مسوى عنيا مسوى شعب الله تاسوا تاس ninkaasi taraaray wuxuu doona iska sheesheeyey ayruusinimada noocaasi ruwaybida ayuu nebigu ku sheegay ruwaybida waa dadka aan u qalmin mas-uuliyad marka loo dhiibo waa calaamadaha saacadday ka mid tahay qiyaamaha taasi waa mid waxaa kaloo reer boorna u sheegayaan adeerkuwa booliiska jooga stationka iyo stationna kuwa noo jooga iyo maaragtaan wixii meelaha iyagu u dirteen ee qoryaha u dhiibeen rasaasta magaalada ka daayaan
rasaasta magaalada ka daayaan rasaas meelu ka dhacaysa barbar iska dhacaysa oon qof ku dhacay oon darbi ku dhacay oo waxba ku dhacay waa baxdaas ya waxa waan isla garanaynaaye kaa aan ka sheekaynayo maaragtay waxyaalaha shirqolo ay samaynayaan waxaa meesha la xaalad abuur baa la dhahdaa maxaa la dhahdaa xaalad buura waxba ka socdo wala ku jira ma soconaysa taas xaqiiqadu bay tag ninka intuu maaragtay qori kalaashka ka fadhiyo ma darbi la iska furay barbar iska furaya waa maaragtay station baa la soo waray in la yiraahdo doonayaan taawaan ku diidnay rasaasta iska dhameynina dadkana ka daayar gax dad la yaa maaragtay station agtooda gala Soomaa rasaasta markay soo waxay iyo ma dhinac baa soo laba dhinac iyadoo kala garanaysa ma kor baa horiyaa ma darbi ku dhacay dad midna soo dhawaaqaa waxa kale ay sheegayaan horta anigu kiiskaygu shalay iyo baraadba wuxuu jeelaa halkaa maxkamadda xeelaalinta iyo maxkamadda gobolka ninkii aniga igu haysta maalinta waxaan idiin sheegay waan ku celin weliba anigu waaga kama leexleexan karo anigu ninkaa uma joogin baa idinweelkii wax ku caawiyey laakiin dadkii anu rays fadhiya ka soo awalkaa ka qaylinayay ee warqadda maaragtay dacwad baan qoranaa lahaa oo raya goorba lahaa ayaa halkaa ka qaylinayay markhaatiyo badan waa laga sheekh xasan khayr allah siiyeen intuu ka hadlay reerkaaga ka hadleen sheekh cabdilaahi ka hadlay arrin qarsoonaysa maaha bal aynu dib u milicsano wasiir ku-xigeenka oo maalinkii shalay ahayd oo khamiista oo la hadlayay madax dhaqmeedka gobolkaasi awdal kana hadlayay arrimaha magaalada boorama iyo eedaha barasaabka gobolkaasi loo jeediyey ee ah in uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka kaasi oo eedihiisa uu iska difaacay barasaabku sheegayna been abuur cad in ay tahay isagoo sheekh xasan daheeyena ku tilmaamay in uu ka mid yahay ururka argagixisada ee al-shabaab si kastaba haatee maalmihii ugu dambeeyey magaalada boorama oo xaraaradeeda siyaasadeed ay kacsan tahay ayaa imaamyada masaajidu waxay aalaaba kaga hadlayeen dhacdooyinka kala duwan ee ka dhaca magaaladaasi waxaana xusid mudan in la sheego in ay jimcihii hore ahayd markii uu khudbadiisii jimcaha ku soo qaatay sheekh xasan daheeye islamarkaasina bulshadii halkaasi salaada jimcaha kaga soo qayb gashay uu u sheegay wararka sheegaya in barasaabkii gobolka awdal uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee uu soo ifbaxo wararka sheegaya in lagu eedeeyey barasaabka awdal in uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka intaasi wixii ka dambeeyeyna waxay noqotay in hadalhayntii ay sii badato islamarkaasina weerar iyo weerar celis la isku mariyo warbaahinta talabaad maanta oo jimcaah guud ahaanba waxaa degan jawiga guud ee magaaladaasi boorama ee xarunta gobolka awdal waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan laygta ha nagala masuugin qaar ka mid ah culimmada kala duwan ee ku dhaqan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal oo soo saaray bayaankaasi oo ay kaga hadlayeen eedihii loo jeediyey barasaabka gobolka awdal in uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka iyagoo taageeray islamarkaasina ku ayiday culimmadii hore uga hadashay sheegayna in barasaabku uu caayey amaba uu aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka waxaanay culimmadani sheegeen in markhaatiyaal fara badan loo hayo culimmadani oo sheegay in aanay culimmadii hore ee ka hadashay tallaabadani in aanay ku degdegin islamarkaasina markhaatiyaal intii loo baahnaa iyo ka badan baayo hayaan in barasaabka gobolka awdal uu meel fagaare ah ka aflagaadeeyey diinteena suuban ee islaamka waxaanay intaasi culimmadani ku dareen in aanay arrinkani ahayn mid siyaasadeed amaba mid reereed waa sida ay culimmadani hadalkooda u dhigeene balse uu yahay diimeed loola baahan yahay cid hay-adaha ay qusayso in ay tallaabo sharciga waafaqsan amaba waxaa sharciga islaamku jideeyey laga qaado mas-uulkani guddidani culimmada ee gobolka awdal oo ka koobnaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolada awdal iyo salal bayaankoodaasi oo ka koobnaa 5 qodob ayaa waxa uu dhignaa sida tan والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo ay bishu tahay 15 جماد الآخر كنا 440 oo waafaqsan 9 bisha labaad 2020 waxaa isku yimid guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista gobolada Awdal iyo Salel iyo qaar ka mid ah culimada Boorama iyagoo falanqeynaya arrintii gudoomiyaha gobolka Awdal oo meel fagaara ah diinta ka caayay kana hadleen culimadu falanqeyn kadib waxay isku raaceen qodobadan soo socda kow in arrinta diin caygu yahay sida culimadu ay sheegeen gaalnimo diinta lagaga baxayo sida ay culimada islaamku ay ku ijmaaceen ama ay ku kulmeen qodobka labaad waxa ay culimadu cadeynayaan xoojinayaan arrintii ay sheegeen in ay sax tahay kuna degdegin markhaatiyaal ka badan intii loo baahnaana ay u hayaan arrintaasi qodobka saddexaad arrintaasi waa arrin diiniya oo aan shaqo ku lahayn siyaasad iyo qabiil toonna qodobka afraad guddiga wanaag faristu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda diineed iyo midka qaran inay u gudbiyeen hay'adaha ay khusayso oo dhan baaritaan dheer kadib 5 waxay ugu baaqayaan culimada waaweyn ee dalka dhammaantood inay si dhow ula socdaan arrintan iyada ah ilaahay baa mahadle wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si kastaba haatee dhowaan ayay ahayd markii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo wafdi ay xukuumadda u dirto halkaasi ku sugan ay sheegeen inaan ilaa hadda loo haynin wax markhaatiya balse hadaladani ka soo kala baxaya culimada iyo mas'uuliyiinta xukuumadda ayaa noqonaya hadallo iskhilaafsan isla markaasina iska soo horjeeda ilaa iyo hadda lama garan doono halka ay ku dambeyn doonto balse waxa laga wada dhul sugi doonaa tallaabooyinka ay ka qaadaan amaba marka la horkeeno hay'adaha ku shaqada leh ee garsoorka iyadoo dadweynuhu ay filayaan in hadii ay jirto in uu mas'uulkaasi aflagaadeeyay diinteena suubada islaamka in sida ugu habboon looga qaado tallaabada sharciga diinta islaamku jideysay waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba shabakada wararka daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin walaalayaal waxaan jeclaystay inaan ka hadlo qadiyad dhawaanahan magaalada aad iyo aad u gilgishay oo socotay muddo 2 toddobaad ah waa qadiyadii ninka barasaafka ka ah gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu eedeeyay inuu meel xaflada diinta islaamka ku aflagaadeeyay qadiyadaas oo culimaduna ay aad uga hadleen sharcigu wuxuu ka qabanaa ay sheegeen laakiin magacyo badan yeelatay siyaasiyiintuna ay si gaar ah u adeegsadeen waxay noqotay shay magaalada gilgila oo aad iyo aad macna badan iyo magacyo badan loo sameeyay shakhsiyan maanta waxaan jecelahay qadiyadaas inaan ka gungaaro salaadii duhur dabadeed maanta waxaan isku dayay inaan anigu si nasteexa ah ugu tago barasaabka gobolka waxaan ogaaday inuu ka maqan yahay magaalada Boorame oo Hargeysa tagay telefonkiisa ayaa wacay goor dhaweyd oo salaadii casir horteedii ahayd ayaan garaacay barasaabka waxaan ku yiri waxaan u socdaa nasteexo maxay leeyihiin diintu adiinu naseexa diintu waa nasteexo dhammaan muslimka oo dhan bay u tahay naseexadaas waxaan kugu socdaa naseexan kugu socdaa nin yahow nin madaxa tahay haddii warkaasi ka dhacay oo aad aflagaadada geysatay waxa laga doonayaa inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala u toobad keento oo ummadda hortada ka qeerato oo cadeyso deetana in badan baan waano iyo waxsheeg ku waday anoo weliba hadallada ku adkaynaya oo sheegaya miisaanka ay leedahay eedda marka lagu soo eedeeyo inaad diin islaamka aad waxyeelaysay ama aflagaadaysay ugu dambeyntii in badan markaan wada hadlaynay ayuu wuxuu dhaari maray wuxuu igu yiri tabacow wallahi billahi tallahi
waa dhaar magaca alla ku dhaaranaya buu yidhi anigu si ismoogaana iyo si ula kacaba dhaar taasaan marayaaye ma garanayo inaan anigu diinta caayin meeshuna buuq iyo qaylaas waxan baa ka jiray meeshana caray waxbaa lagu kala tegey saasay hawshu ahayd ninkaasi dhaar buu ii maray qofka muslimka ah anu naseexaan ugu tegey xoolo kama doonaynin masaf siyaasad kama doonaynin waxaan doonaya qadiyadaas inay soo afjaranto hadduu qofkii ku leeyahay ilaahay baan ku dhaaranayaaye anigu ma ogi hadalkaa inuu afkayga ka soo baxay wixii intaa ka dambeeya in qofka laga hadaa wanaagsan oo qofkaasi ilaahay isaga loo daayo qofka hadduu ku leeyahay qof muslim aan ahay waana shahaadanayaa ilaah waanu toobad keenaya habeenaya maalinba oo saa qofkii ku calaacalayo oo halkaa taagan yahay niman yahow waxa lagu sii daba socdo oo buuq laga raadiyaay meeshaa kuma jirto dadyooga muslimiinta ah dhammaantood waxaan ugu naseexaynayaa diinteennu waa naseexo diinteennu waa diin wanaagsan maaha ruwaayad iyo ciyaar maaha fagaarada joogsada maaha tuu la iska hadlo reega lagu sheega maaha wal allaha laga baqo ilaahay dartii aan ugu naseexaynaya anuu hadalkaa aan leeyahay wallaahi dhaar baan marayaaye inaan ujeeddo kale ka lahayn inaan cid ku difaaca ma doonayo inaan cid ku taageero ma doonayo inaan cid ku xumeeyo ma doonayo waxay iga tahay naseexo ilaahay dartiya niman yahow diinteennu aynu diinteenna qabsanno yaan diinta laga dhigin waran dadka lagu taagtaago oo lagu ceeyo yaan laga dhigin war dadka siyaasadda lahow siyaasaddiinna iyo is-eridkiinna halkeeda la mara ku soo dhawow youtube channelkeenani ila meeraysa news